markay faal imaado dib badan lagu maraa foosha city waa kuwayahay wax aad helaysa male marka aad safar tahay saadkuna ka dhamaado masaafo aad u dheerna aad soo lugaydo waxa hubaala inaad haraadayso adigoo oon dartii la haraadsan marka aad soo gaarto tuulooyinka Ceelmulug Boos Hareeri iyo Boos Caduur hamigaadu waa inaad biyo nadiif ah hesho si uu kaaga boo haraadka halkaanse biyo kama helaysid waxa kaliya aad ka heli kartaa waa caano lagu barxay biyo cusba leh oo laga helo ceelasha ku yaala deegaanadan hobyo iyo Hargeysa berberatan iyo Hiiraan dadka soo haya ma halkay ku hakanaya hadna kuuma weyn oo hunguri waa la heestaa hashi caano heerina haddaan ka harqanaya iska hurud halkaaga iska jiif biyo sahayay waxa intaasi ku sii dheer abaarta dabada dheeraatay oo ka jirta halkaan ayaa sababtay in qoysas badan ku xoolo beelaan dadkuna raadartii u geeriyoodaan xoolihiina ay caano beelaan dadka hadda nooga dhintay hadda marka la joogo dawladda noo timid kadib 10 iyo 1 cunuga nooga dhimatay meeshan wax ku taamo hadda laga heli karo dad ka jira dunya waa ka baado abaara kaleys dadkan 5 sano abaaray soo mareen webi mal horta meesha aan ku sheego webigu wuxuu noo jiraa 9 kilomitir baduna waxay noo jirtaa 180 kilomitir inta ka dhaxlan ku noolna tuulada Ceelmulug waxa ay leedahay hal ceel oo biyo macaan balse qawaarita arxaka daran ayaa dadka deegaanka ka joogtay ceelkaasi tuulada imaamyada ee loo soo aroortay jirana dhul dheer ayuu hadda dhaanku kaga yimaadaa halkan sida idin muuqata waxa waaye ceelka deegaankan oo ku magacaaban yahay Ceelmulug ayaa lagu magacaabaa ceelkan waxa looga soo aroori jiray deegaano aad u fofog oo 20 kilomitir 10 kilomitir ilaa 15 kilomitir isugu jira waxa ahaa ceelka kaliya ee ku yaala tuuladan iyo deegaanada ku xeeran waxa ka cabi jiray xoolaha iyo dadka intooda kala duwan balse kooxda qawaarita al-shabaab waqti ay imaadeen waxa isugu darsoomay laba dhacdo oo midba mid kale uga xanuun badan tahay deegaankan midi waa in ceelkan uu biyiray aysan haysan bedelkiisa mid kale oo ah in kooxda qawaarita al-shabaab ay dabooleen afkiisa والله نيو هذا وقت كان ضمن عيلكي وحاسدان u dhigay oo rafaadiyay oo oodan u jeedo ku daba gediyay niman muddo 5 iyo 10 sano dalkan maskaxda iyo maalkaba ka gumeysay ayaa sidan ugu dhiga marka alxamdulillah hadda dawladda Soomaaliyeed timiday sidii loo wax looga qaban karo in dawladda Soomaaliya ay wax ugu qabato dhibaatada ay ummadda u geysteen waa kaasa ceelki kaliya oo ay ku noolaayeen saan u yaala isgaarsiin lagama yaqaan inta wax qorto ama wax akhrisaahina waa ku yar tahay waxaase kaaga daran qofka xanuunsada qandhajabiye ma heli karo oo waxa lagu daaweeyaa caado dhaqameed hooyada ku foolata deegaanka Ceelmulug oo hoostaga Aadayabaal waxa loo qaadaa masaafo ka badan 200 kilomitir sababtoo ah halkan kama jiro isbitaal iyo adeeg caafimaad xitaa mid yar oo lagu caawiyo haweenka foolanaya masaafadaasi waxa ka sokeeya jid raf ah bacaad iyo dhagaxan ka kooban waqtiga waxa ka sii daran in la helo haweenkaas gaaridiidka qof u waca sababtoo ah isgaarsiin halkan ma taalo waxaana la gaarsiiyaa qof loo diro oo lug ku baxa kaas oo taga Aadayabaal mararka qaarna Aadayabaal waxa laga soo wayaa gaadiid dameer ayay noo sheegeen dadka deegaanka in la saaro laba habeen la sii socdo Aadayabaalna la geeyo kadib waxa loo qaadaa Muqdisho iyadoo loo raadsho gaadiid lacagta ku baxdaahi waxa ay ka badan tahay $1 waxa dhacda mararka qaar dadka laga qaado halkan inay dhex ugu sii dhintaan sabab la xiriira daryeel la'aan inta hadii laga qaado degmada Aadayabaal la geeyaha xoogay waxa laga raadinayaa ay sheeg gaari mar waa la helaa oo dhaqsiya lagu helaa marna waa la waayaa marka dhaqsi lagu helo ilaa amarkii qoftaan dhima rabin waa laga gaarsiyaa Jowhar amba magaalada Muqdisho ka bacdi mugaasay wixii dhimar waa dhimayaan wixii oo badbaadi rabana markaas ay badbaadayaan naagta uur kale in la qaaday waxay ku dhimataa dhax indhiga baxay ugu dhimataa xamar dhirta dhigtay ama baawrka la halaaba ama maaragtay damba iska qabahaysa ama dadka iska weysa wax baawr ku saarto wiiha marka dhaqaale xumadana haysa inta gibirtu idin dul martay iyo atendal aasoo anu ku diray noocaas waay dhibaatooyinkaas isbiirsaday ee ka jira tuulooyinkan Ceelmulug Boos Hareeri iyo Boos Caduur waxaa sababay kooxda qawaarita al-shabaab oo diiday in halkan laga hirgeliyo adeegyada aan soo xusnay